habeenkii dadku hurdu igu tukan jiray way akhrin jiray maalintii buu akhrin jiray kitaabka quraanka saaxiibu ilaahayo maanta waxaan ka codsanayaa inaad ii saamaxdo oranaya hadda waa quraanka ku qoran kitaabada oo hadlaya oo muuqaal leh baa imanaya waxa hogaaminaya nabiga kaleey salaam suuratul baqara iyo aalu imraan iyagoo daruuro waa weyn la eg bay soo degayaan oo imanaya qofkii akhrin jiray la saaxiibka ahaa dadka way ka garanayaan way soo dhufanayaan adoonka ilaahu noo soo qabo adoonta ilaahu wayna akhrin jirtay habeenkii bay nagu tukan jirtay maalintii bayna akhrin jirtay waana xafidi jirtay hadaan quraanka nahay ilaahu way xafidi jirtay way ugu tukan jirtay intaas nolosheedan kamida saaxiibaan la aha ilaahu maanta waxaan ka codsanayaa irgana kaaga ahay inaad saamaxdo dhaafto oo u sii deeniya Allah subhanahu wa ta'ala خلاص نعيم الدنيا والاخره وضحش markaas la oranay akhri quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu doonayaa jannada meel sanad digtid quraanka iyo qofkani intuu yaqaanay buu bilaabaya marka aayad waliba uu akhriyo jaran kora ayuu dalacaya jannada ila aayada ugu dambaysa ee quraanka ka taqaan jannada ku galisa aayada ugu dambaysa halka marka dhaafin weydo halka deg baa la oranayaa qofka shoof hada 10 juz taqaanid ka war inta aayad baa ku jira 10 juz quraanka wa kitaab عظيم waqtigana dadku waa ka fogaadeen waxyaabo kale maadiyada lagu mashquulay quraanka waa ku dardaarmeen waana hanuun qofka intuu quraanka istawa hanuunsan yahay waxa kamida saaxiib wanaagsan in Allah saaxiibto waxyaabaha hanuunka qofka ku ilaaliya kamid qof iska luma ma jiro qof kasto lumay ama xumaaday saaxiib xun baa lumiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanku kaga waramay subhanahu wa ta'ala في سورة الفرقان إلهي قرآنك وكاكا شيكي صاحبك ونكسن وكا شيكي سورة الكهف دلن يردي دين تودر لبحثتي إهوغا كشي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى دلن يرى إلهي رميه بأحاين هنون بانو زيادني بل هذا إيك قرآنك لمن كان دلن يرى تضبي أحاين أما سيديد بي أحاير waxaa raacay oo la socday eygii nimanka culimada ah ee dhalinyarada ah raacay ilaahay raacidoodii ila saaxiibku la saaxiibay ayuu ku karaameeyay quraanka lagu sheegaya balfiir quraanka la akhriyo ba ilaahay eygii ku sheegay eyga maxaa loo sheegayaa iyagu godka la galo saaxiib la ah oo raacidii oo raacay kaliya ba ilaahay sheegaya في سورة الكهف سيدا أوجد قفك وناكسن بالراعة وكأخلاق وناكسن وحجابك كاغفيان ودينك كاتشعل وخيرك كاتشعل كاسال الراعة قربك وسقاضية قف لكن أنتي صدق شيكو إيو قصل إيو موبايل إيو عيار إيو سكساق إيو وحبرش جوجين إيو عين كاوتاي هداد الراعة هداد دتك وفريد سنتهاي تحت كاتجيسة سيدا أوجد waxa loo baahan qofka muslimka qofka wacan raac rasuulku muxuu sallallahu alayhi wasallam almaru ala diini khalili qofku la saaxiib yahay buu la diin iyo dhaqan yahay falyanzur ahadukum man yukhalil waray qofka idin kamidaho qofka la saaxiibisa ka fiirso nabiga alayhi wasallam hadawha abanin ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila الله هدانا هبل صاحب كدكتين هدانا هبلايو انا لا صاحبين هدي ادو بريتن انت كو عبادي دونت لم اتخذ خليلا ومعوك ياله لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني هنونكي دينتي خيركي بو يغلومي اني هو وناكسن او استورن او دينتا وحبرشده حشودك خيارنimada ku wanaagsan ayaan ku xidhay layma arag meelan maray لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا شيطانك وحور أهاذي أما يهيب ونقضي إنسان كميت حكرذب إلى هير أوهو تشيه ويا إنسانك إنو كدو ليو دوني إنتاس إسكا إلالي مركا صاحبك حن راعديسا وحيابها هنونك اللقوة يكمت إمي سقف أو وناكسنا أيا أنتو قف حن لا صاحبي كركارك ويدارتي قف وناكسن لا صاحب وحا كميدا هنونك وحا لغو هلو إلى